saddexdaas salaadood oo sunnooyinka ah waxay ku midaysan yihiin in nabiga calayhi salaatu wasalaam rakcadda koowaad uu akhrin jiray suuratu alkaafiruun rakcadda labaadna uu akhrin jiray suuratu alikhlaas waa kuwaas qabla salaati alfajri labada rakca la tukanaayo bacda salaati almaqribi labada rakca la tukanaayo khalfa maqaami ibraahim labada rakca lagu tukanayo oo ilaahay uu leeyahay waاttakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa labadaas rakacna nebiga wuxuu ku akhrin jiray qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad taasna waxay faa'iido u tahay dadka dhan nasiib uma yeelan karaane qofka ilaahay uu calfo inuu cimraysto ama inuu xajiyo inuu ka faa'iidaysto tawaafka markuu kugu dhammaado 7 ashwaad labada rakac inaad tukatid haddaad jaanis u hesho aad ku akhrisid qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allaahu axad iqtidaa'an binnabiyi calayhi asalaatu wassalaam khaasatan haddana labada rakac oo bacda salaati almaqrib la akhrinayo waa sunna mahjuura waa sunno laga hijrooday laiska hilmaamay oo xasuusteedana ay yar tahay towfiiq allahna waafajiyo wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh